haye magacaygu waa Ana waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo maxaa ku dhacaya dadka aan muslimiinta ahayn kuwaasoo islaamka aan waxba ka garanayn maxaa ku dhici doona haddiise uu dhaho qof aan muslim ahayn mucjisaadka ciisa waxaa ka weyn kuwii Muxamed la yimid walaasha laba su'aal ayayna weydiisay tan koowaad waa maxay masiirka qofka aan muslimka ahayn ee islaamka aan waxba ka aqoon weligiiba tan labaad haddii uu dhaho qof aan muslim ahayn mucjisaadka uu la yimid ciisa calayhi salaam ayada ayaa ka weynin badantii Muxamed la yimid maxaa dhici doona marka loo fiirsho nuqdada koowaad haddii qof aan muslimayn uu yimaado iina sheego inuusan islaamka waxba ka garanaynin arrintaas waa arrin adag inay maanta dhacdo caalamka cilmiga iyo tiknoolajiyadda laga yaabay su'aashaas hadduu i weydiin lahay muddo laga joogo 50 sano suurtagal ayay ahaa lahayd maanta waa casrigii cilmiga iyo tiknoolajiyadda khaasatan wasaa'isha iclaamku waxa ay faafinaysaa faham qaldan oo ay ka faafinayso islaamka adigoo islaamka ayaad u banbaxaysaa laga yaabay inuu yahay islaam qaldan laga yaabay inuu yahay islaam beenbeena kaasoo muslimiintu ay yihiin argagixiso muslimiintu ay yihiin usuuli islaamku waa diin dil haweeneyda waa uu ihaanaysanaya uu adoomaysanaya laga yaabay inay islaamka sidaas ah baranayaan laakiin waa islaam qalad ah hadda maxaa ku dhici doona dadka aan muslimiinta ahayn ee tacaaliimta islaamka ee saxda ah aan baranin aniga waxaan dareemayaa haddii qof aan muslim ahayn uu maqlo ama shakhsi kale iclaamka uu wax ka maqlo waxaa ku waajiba arrintaas inuusan ka soo qaadin arrin sax ah quraanka alle wuxuu ku leeyahay suuratul xujuraat suurada raqamkeedu yahay 49 aayada 6 markay ku soo gaaraysa macluumo waxaa kugu waajiba inaad iska hubido inta aadan qof kale u sii marin markay macluumo ku soo gaarto waxaa muhiim ah inaad iska hubido in qofka kuu sheegaya uu saxsan yahay ama qaldan yahay ama se marka loo fiirsho risaalada islaamka haddii qof aan muslim ahayn uu ku nool yahay jasiirad tusaale ahaan ama Timbuktu ama makaan aan waxba ka ogeyn macrifada islaamka ugu horeyn qof kasto muslim waajibkiisu waxa weeye inuu risaalada diinta islaamka gaarsiiyo qofka aan muslimka ahayn iyadoo aan la fiirinaynin gaarsiintiisa risaalada marka ugu horeysa Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay suuratu fussilat suurada 49aad aayada 53 dhawaan waxaan tusi doonaa calaamadaheena makaan meesha ugu fog ilaa uu ka cadaado arrinkaas inuu yahay xaq Ilaahay wuxuu leeyahay inuu aayadaha iyo calaamadaha tusi doono qof kasta oo basharka kamida intuusan dhiman ka hor dib ayaa laga tusin doonaa aayadihiisa makaan meesha ugu fog ilaa uu ka cadaado inuu arrinkaas yahay xaq Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ballan qaaday mas'uuliyadda gaarsiinta risaaladan nafsad ahaantiisa dhammaan basharka ha ahaado mid ka dhashay qoys muslim ama mid aan muslim ahayn ama dhul muslim ama dhul aan muslim ahayn Ilaahay uu gaarsiin doonaa risaaladan mid kasto kamida basharka sida darteed sababta markii ay jirtay halka cilmi baaris xilliyadii kontomeeyada ee laba qabiilood haddana labadaas qabiilada Kabauko iyo dadkii aslan badagi jiray Australia labadaas qabiilood xadaarada cusub ma gaarin ilaa 1950kii markii baarayaashu ay u tageen oo ay isku dayeen inay noloshooda iyo qaabkeeda ogaadaan qoomkaasi waxay rumaysnaayeen hal ilaah inuu alla keligii yahay oo waajib tahay asaga la caabudo أحد نؤوسن دلين وين أسجود جرين عبادة ربك شيء كستا وحو أها إسلام لكن سمجع إسلام ما إسنه سنين مركي أوسن جرين سامين لنك خارج جاه إنسان كقدعة السجو وحو قضوع يا إرادة الله سبحانه وتعالى سيدرت الحبيب كان الرسول كمحمد وحو ليه صلى الله عليه وسلم مجر قفل دلا إلا وحلو دلا فطرة قف كستو دلا وحلو دلا دين تفطرة وحال دلا يا سجو مسلمة وحو ليه يا حبيب كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عنق كستو دلا وحال دلا سجو مسلمة مسلم عنه سوا قفك إرادة إلهي سبحانه وتعالى أقضوعي marka kadib qofkaas waxa laga yaabaa inuu ku saamoobo labadiisa waalid ama muallimiintiisa ama awooyaashiisa kadibna oo bilaabo cibaadadii naarta ama caabudidii asnaamta halkaas ayuuna uga leexanayaa wadadii saxda ahayd sida darteed marka qof aan muslim ahayn oo galayo diinta islaamka arinta ugu wanaagsan ee la dhahaa waa uu soo noqday marka hore muslimnimo lagu dhalay kadibna waa uu ka leexday diintii oo meel khada iyo qalad u aaday kadibna mar kale ayuu soo laabtay iimaankii asalka ahaa arrinkaasina waa إذن كلمة الصحة ulaabashada islaamka hadaan su'aasha u soo laabto hadaad soo qabato saddex cunug mid wuxuu ka dhashay qoys Kirishtaan mid waa Yahuudi midna waa Hindu oo aad ilmahaasi aad si dhameystiran uga ilaaliso saameynta khaarijiga ah marka ay weynaadaan hadaad isku daydo inaad ogaato nooca noloshooda ma ahaan doono waxaan islaam ahayn kaliya marka uu ku yimaado saameyn
dibadda ah ama khaarijiga ah waxay bilaabayaan inxiraaf iyo inay ka noqdaan wadada saxda ah waxayna bilaabayaan inay caabudaan sheeye qalad ah iyo inay qaataan afkaar qalad ah arrintaasina waa cilmi ahaan ay u sugan tahay arrintaa waxaa dheer walaashay marka su-aashaada labaad aan u soo noqdo haddii uu jiro qof u nasab sheeganaya islaamka ee aaminsan in masiix uu sameeyey mucjisaad aniga waan ku waafaqsanahay masiix ciise calayhi salaam inuu mucjisooyin sameeyey laakiinse walaashay mucjisaadku ma ahan imtixaan haddaad rumaysan tahay masiix ciise calayhi salaam oo aad akhriso baybalka masiix ciise wuxuu ku leeyahay baybalka mataa jabtarka 24aad cadadka 24aad maxaa yeelay waxaa soo muuqan doona kuwa beenaalayaala oo nabinimo sheeganaya waxaana la imaan doonaan cajaa'ib iyo waxyaabo mucjisooyin u eg dadka kuwa ugu wanaagsanna way dhakri doonaan hadday suurtagal tahay idan masiix ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay mucjisooyinku imtixaan ma aha maxaa yeelay waxaa soo muuqan doona dad badan oo beenaalayaal oo nabinimo sheeganaya lana imaan doona cajaa'ib iyo wax mucjisooyin u eg dadka kuwa ugu wanaagsanna way dhakri doonaan hadday suurtagal tahay taa macnaheedu waxa weeye masiix ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay mucjisooyinku ma ahan halbeega mucjisooyinku qofka kama dhigayaan ilaah mucjisooyinku qofka kama dhigayaan qof qaariqul caado ah oo caadada ka baxsan maxaa yeelay dhammaan mucjisooyinka ay rasuushu sameeyeen waxaa lagu sameeyey waasidada Allah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa rasuushu ku ayiday dhammaan mucjisooyinkii uu sameeyey Nabi Muuse badda kala jeexideeda markii uu u shatuuray isku bedeshay abeeso dhammaan waxaasi waxay ku imaadeen amarka Allah subxaanahu wa ta'ala dhammaan mucjisooyinka uu sameeyey Ciise calayhi salaam waxay ku imaadeen amarka Allah waa isku mid rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kala dilaacidii dayaxa waxay ku dhacday amarka Allah subxaanahu wa ta'ala waxaan ku leeyahay islaamku waa diinta kaliya ee ka dhigaysa in la rumeeyo masiix ciise calayhi salaam qayb ka mid ah iimaanka muslimku muslim noqon maayo hadduusan rumaynin masiix ciise calayhi salaam annagu waxaan rumaysanahay inuu ahaa rususha alla soo diray kan ugu badan dhanka awoodda waxaan rumaysanahay inuu ahaa masiix waxaan rumaysanahay in loo dhalay si icjaasi ah iyadoo ayna soo galaynin tadaqul dukuuri ama lab ah arrintaasina waa waxa aysan rumaysneen in badan oo ka mid ah masiixiyiinta cusub annagu waxaan rumaysanahay inuu dadka dhintay Ilaahay idinkiisa ku soo nooleyn jiray waxaan rumaysanahay inuu caafin jiray dadka ku dhashay indhoolanimada asalka ah iyo baraska Ilaahay idinkiisa ku caafin jiray muslimiinta iyo masiixiyiintu hal meel ay wada socdaan laakiin qof inuu isweydiiyo laga yaabaa maxay tahay wadada kala geynaysa waa badanaa masiixiyiintu waxay rumaysan yihiin masiix ciise calayhi salaam inuu yahay alle waxay rumaysan yihiin masiix ciise calayhi salaam inuu rabbinimo sheegtay xaqiiqatan haddaad akhriso injiilka lama helayo cibaaro kaliya oo cad oo sheegaysa inuu masiix ku leeyahay in masiix ciise calayhi salaam nafsad ahaantiisa uu leeyahay anigu waxaan ahay rabbi ee caabuda hadday kuu suurtagelayso walaashay inaad ii tilmaamto hal cibaaro oo kaliya oo macnaheedu cad yahay oo wax dabool ah aan saarneen nusqo kasta oo baybal ah oo masiix ciise calayhi salaam ku leeyahay waxaan ahay ilaahay ee caabuda anigu waxaan diyaar u ahay inaan kristaanatiga galo maanta xaqiiqatan haddaad akhriso injiil ama baybalka masiix ciise calayhi salaam wuxuu ku leeyahay injiil Yuhanna chapterka 14aad cadadka 28aad aabahayga aniga waa iga weyn yahay injiil Yuhanna chapterka 10aad cadadka 29aad aabahay dhammaan dadka waa ka weyn yahay injiil Mata chapterka 12aad cadadka 28aad anigu waxaan shayaadiinta ku bixinayaa ruuxda alle injiil Luuqa chapterka 11aad cadadka 20aad anigu waxaan ku bixinayaa shayaadiinta farta Allah injiil Yuhanna chapterka 5aad cadadka 30aad anigu ma awoodo inaan nafsad ahaanteeda wax sameeyo anigu waan xukminayaa sidii aan ku maqlay xukunkayguna waa caadil maxaa yeelay uma degdegayo mashii'adeeda iyo doonisteeda waxaan u degdegayaa mashii'ada Allah shakhsi kasta oo dhahay anigu uma degdegayo mashii'adeeda iyo doonisteeda balse waxaan wax ku sameynayaa mashii'ada alle asagu waa muslim masiix ciise calayhi salaam waa muslim weligiina rabbinimo ma sheegan mana dhihin inuu yahay Allah wuxuuna arrinta ku cadeynayaa injiil Yuhanna chapterka 14aad cadadka 24aad hadalka aad maqlaysaan ma aha hadalkayga balse waa hadalka Allah aniga ee soo diray waxa lagu sheegay injiil Yuhanna chapterka 17aad cadadka 3aad noloshaani waa joogto si aad u garataan inuu jiro hal ilaah oo kaliya waana Allah soo diray masiix ciise arintaas waxa lagu sheegay sacad masiix ciise inuu rasuul ahaa waxa lagu sheegay injiil Mata chapterka 19aad cadadka 16 ilaa 18 in u soo dhawaada masiix ciise calayhi salaam uuna weydiiyay macallinkan saalixa ahow maxay tahay ashyaada wanaagsan taas oo waajib tahay inaan sameeyo si aan u helo nolol abadi ah wuxuu ku yiri masiix ciise calayhi salaam maxaad igu yeereysaan saalix wuxuu yiri saalix ma dhihin ilaah
iyadoo oo jiro hal saalix oo kaliya waana abka ku jira jannada haddaad doonayso nolosha abadiga ah wasiyooyinka iyo dardaaranada xifdi ma dhihin masiix ciise calayhi salaam haddii uu doonayo inuu jannada galo waxaa kugu waajiba inaad rumayso inaan anigu ilaah ahay mana ku dhihin waa inuu rumeeyo inuu saliibka ku dul dhintay dembiyadooda dartood laakiinse wuxuu yidhi waxaa weeye haddaad doonayso nolol abadi ah oo rabto janno inaad gasho wasiyooyinka xifdi arrintaas waxay ku caddahay sifr acmaal rusul jabtarka 2 cadadka 22 ragga reer bani israa'iilow arrintan dhagaysta yasuucu naasiri waa rajul ilaahay adinka dhexdiinnin ka waafajiyey lana yimid cajaa'ib iyo mucjisaad ilaahay gacantiisa ku sameeyey adinkuna waad aragteen maxaad leedahay yasuucu naasiri waa rajul ama nin ilaahay dhexdiinnana uu ka waafajiyey cajaa'ib iyo mucjisaad iyo calaamaad oo ilaahay gacantiisa ku sameeyey adinkuna aad daawateen oo aad aragteen su'aashaada gaar ahaan mucjisaadka muxuu ka leeyahay beebalku sifru acmaal rusul jabtarka 2 cadadka 22 rajul ilaahay idinka waafajiyey dhexdiina cajaa'ib iyo mucjisaad iyo calaamaad ilaahay gacantiisa ku sameeyey adinkuna aad aragteen idan fadliga oo dhan ilaahay ayuu u noqonayaa masiix ciise wuxuu ahaa nin dhammaan mucjisooyinka uu la yimid waxay ka ahaadeen amarka alle subxaanahu wa tacaala dhammaan mucjisooyinka ay rusushu la yimaadeen amarka alle ayay ku timid waxayna ula imaadeen si ay uga markhaati kacaan inuu jiro hal ilaah oo kaliya masiix ciise wuxuu ku leeyahay injiil yuxanna jabtarka 16 cadadka 12 ilaa 14 waxaa agteyda ah waxyaabo badan si aan kugu sheego laakiinse ma awoodaan hadda inaad u dulqaadataan maxaa yeelay asagu waa ruuxdii xaqa markuu idin yimaado wuxuu idinku hanuuni doonaa xaqiiqada kaamilka ah ee dhameystiran mana ka hadlayna nafsadiisa balse wuxuu ka hadlayay wixii uu maqlay dib ayuuna ii sharfi doonaa hadda nabinimadan uu sheegayo ma aha nabinimo kale ee waa nabinimada rasuulkii rususha ugu dambeeyey waa Muhammad calayhi salaatu wassalaam idan haddaad tahay kirishtaan dhab ah oo rumaysan masiix ciise calayhi salaam wuxuu masiix ciise calayhi salaam leeyahay agteeda waxaa ah waxyaabo badan oo si aan idinkugu sheego laakiinse ma awoodaan hadda inaad u dulqaadataan maxaa yeelay asagu waa ruuxda xaqa ah markuu idin yimaado wuxuu idinku hanuuni doonaa xaqiiqada kaamilka ah nafsad ahaantiisana kama hadlin wuxuu ka hadlayay wixii uu maqlay wuuna isharfi doonaa nabinimadan ma aha nabinimo kale ee waa nabinimada rasuulkii rususha ugu dambeeyey Muhammad calayhi salaatu wassalaam adigu haddaad tahay kirishtaan dhab ah waxaa kugu waajiba inaad rumayso rasuulkii rususha ugu dambeeyey Muhammad calayhi salaam waxaan rajaynayaa su'aashaada inaan ka jawaabay walaashay 20 daqiiqo kadib gabadhii waa ay soo laabatay si ay waxyaabaha qaar u cadayso assalaamu calaykum waxaan doonayaa oo kaliya inaan ku dhaho Dr. Zakir aniga waxaan u soo noqday xaqiiqatan islaamka markii horena waxaan ku weydiinayay su'aalo oo kaliya taas oo ku saabsan ku dhaganaashadayda qawaacidda diinta ee ixtiraamida qoyskayga iyo asxaabtayda waxaanan doonayaa inaan dhaho oo kaliya friends and I just wanted to say subhanallah and la ilaha illallah That's why I said you have to say what you have to say. Welcome to Religion of Peace, sister. kusoo dhawow diintii nabadda walaasheen ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu kugu abaalmariyo oo jannadiisa ku geliyo waxaana ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu Allah subhanahu wa ta'ala guide you. haddii aad doonayso in wax lagu cadeeyo annagu aad ayaan ugu faraxsannahay arrinta waxaana jira maraakiis dacawi ah iyo munadamaad iyo hay-ado ee gabdhaha walaalaha ku leeyihiin halkan Dubai waana kuu suurtagal inaad la xiriirto haddii aad haydo wax istifsaaraad iyo tala soo jeedina haddana haddii aad wax su'aala qabto si aad u qancido afraadda qoyskaaga soo dhawo walaasheen annagoo aad ugu faraxsan